waxaan ku hamiyaa inaan noqdo xawaahay madaxweynaha mustaqbalka. ma nooga sheekay kartaa qisadii ku saabsaneed inaan ciidanka xoogga qorato? haa saaxiib, tii igu la yaabka badneed aan ku arkay waxay ahayd naagay ahayd marka qawaariid ka tirsan. haa marka waxay leedahay iska dhiciya dhan walba loogu bixi karaa. wadankan waa qani, meel walbo aniga aan tagay ilaa iyo tababar meel walba u tagay aan soo arkay wadamada shisheeye wax ka fiican dhulkan hooyo ma jiraan. laakiin halkaas aniga la yaab kale waxay ugu noqotay inay maanta xoolo ay dadka ka baadi jireen in aan quwaddiida ugu sii baado. waxaan joogaa qaybta xawaha caafimaadka ee gargaarka degdega. dadka dhahayo dadkan ama dalkan daacad loo wada maahan, maxaa adiga ku waalaayo, maxaa adiga kariga ku cararsiyahay, maxaa haddaad dhimato hooyadaa ka dhimatay. dadka soo dhawaada daawadayaal, waxaan ku sugannahay furinta deegaanka Shabeelow ee koonfurta gobolka Mudug. maanta waxaan nasiib u yeeshay in aan halkan kula kulmo oo furimaha dagaalka kula kulmo saaxiibkay Cabdirasaaq Sheekh Maxamed oo ah askari ka tirsan ciidanka Gorgor gaar ahaan guutada 18aad. Cabdirasaaq waxa uu aad caan ugu yahay barta TikTok-ga oo isticmaalo uu ku soo galo galeerka. dabcan dadka Soomaaliyeed inta badan ee TikTok-ga isticmaalana way la socdaan arrimaha ciidamada iyo hadba meesha ay joogaan iyo bacsiga khawaarijta ayuu bartiisa TikTok-ga ku soo bandhigaa ilaa ku dhawaad 100,000 oo qof ayaa ku xiran. Cabdirasaaq soo dhawow, maanta aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kugula kulmo furintan gobolka Mudug. shaqadan aad ku jirtid maanta aad halkan u joogto koonfurta gobolka Mudug, dhulkan cidlada ah aad qawaarij ku bacsanaysaan kaaga daba imid, maxaa dareemaysaa? sidee u aragtaa shaqadan? saaxiib macaan, waxaan dareemaa farxad aan la qiyaasi karin. shaqada aan ku jirno waa shaqo aan ku faraxsanahay 100%. Cabdirasaaqow, dabcan waxaa ku jirtaan dagaal qawaarij iska xoreen ah wadankii Muqdisho ka soo baxdeen, Shabeellada Dhexe, Hiiraan, Galgaduud, Mudug ayaa maanta joogtaan. intaas oo ka waran dhul ah oo soo marteen, culays intee leeg ayaa dareentay mise waxay ahayd shaqo aad ku faraxsan tahay oo hadba noloshaada normal ahayd? shaqadaasi waa shaqo aan ku faraxsanahay ahayd. wax culays oo aan wax dhibaato ah aan kala kulmo ma leh. marba marka ka dambaysa saanta aan qaado waan ku farxay. ilaa haddana waan ku faraxsanahay maanta inaan Shabeelow aan taaganay ee ugu soo booqdaan daljiyaashii qaranka SNTV. وما سنتي cabdirasaaq dabcan waxa ka tirsantahay guutada 18aad ee ciidanka Gorgor xoog dalka Soomaaliyeed oo halkan degan. dabcan qaybtee u qaabilsantahay? ma adiga qaybtee ka tirsantahay ciidanka hadba qayb shaqay leedahay? aad iyo aad waa saxanta saaxiib. laakiinse unitka waxaan ka tirsanahay 10aad ee guutada 18aad. waxaan joogaa qaybta xawaha caafimaadka ee gargaarka degdega. caafimaadka waa qayb muhiim ah. dabcan caafimaad marka ay joogtid ciidamada dagaal ay galaan waqtiyada ugu shaqada badan dabcan waa waqtiyada dagaalka. aad iyo aad marka askariga maxaa u qaban kartaan mase maxaa dareentaan markii saasoo kale ciidamada dagaal galaan oo dhaawacyo la idin keeno, maxaa u qabataan? hadba nin walba sidii oo ugu habooneed ee loogu shaqayn lahaa inuu shaqaynaa. waana xawahay 100% waxaan gaarsiinaa goobaha loogu talagalay caafimaadka. cabdirasaaqow, dabcan qaybta caafimaadka waa qayb muhiim ah oo ka tirsan ciidankan. markii laga soo tago dagaalada caadiga ah ma gashaan? dagaalada caadiga aniga safar ugu jirnaba. sababta xawaahay anigu waxaan jeclahay mar walba inaan ugu horeeyo waxa in la iga sheekeeyo amba xawaahay wax la soo wariyo ma jecli. waxa xaqiiqada inaan arkaan jeclahay. aad u masantahay. dagaalkii ugu adkaay muddadan aad ka tirsaneed ciidanka Gorgor sanadaha ah ee qawaarij la dagaalameyseen ilaa 4 gobol ayaad ka soo howlgashay inta aan ogahay. ku ma xusuusataa? aad iyo aad haa. dagaalku waa intuu ka dhacay? wuxuu ka dhaxay Galcad, meel yiraahdo Galibaax iyo Ceel Qurac. ma waqti ma qiyaasi kartaa xilligaas saacadu iyo jawga sidoo ahaa? jawga horta anigu waa ku faraxsanahay maalinkaas. xilli waxay iska degan, qorax badan aysan jirin. laakiinse macnaheedu ma ahan inaan anigu aan dagaalanaa waqtiyada anu aan rabno. ma waqti walba hal habeen inaan u dagaalano u taaganahay kuleel qabow wax walba dhaco inaan xawahay baacsano nimankan ma ahayne jawi ma qiimeeyno. marka waqtigaas dagaalka aad gasheen ma galab mase subax? adiga duhurladii ahayd. meeqa saacadood u socday dagaalkaas? 4 saacadood u socday. 4 saacadood toos ah. marka
maxaad aragtay indhaha ku aragtay oo qawaarij dhimatay ama isqarxinaysa ama tii igu la yaabka badneed aan ku arkay waxay ahayd naagay ahayd marka qawaarij ka tirsan haa si fiican marka waxay leedahay iska dhiciya macnaha wax maleeshiyaadkooda dhiirigelinaysa laakiinse hal dhig u dhiga lagama arkay inta wadabaday jeediyaan saaxiib way carareen marka in la dhiirigeliyaa iyo inay soo dhiirigeliyaan waxay muhiimadu leedahay markii xawaa ayaga ay meesha joogaan kaliya ay dhiirigelintaas qaataan markii goobta aniga hor yimaadiin dhiirigelintaas iyo wax walba lagu soo shubaa madhab walba ay aaminsan yihiin nala hor taagnaa karaan galcad maalmihii aa xoreynayseen waxaan xusuustaa adigoo caag saddexle ah oo caana ku jiraan bartaa tiktok aan ku arkay dhahay qawaarij ayaan ka soo furtay marka maalintaas dagaal noocaya dhaca saaxiib maalinkaas dagaalkuna aad asaguna u qaraaray laakiinse waxay iidana meel kale oo galcad ka tirsan oo hoos timaado macnaa ontario la yidhaahdo oo calihela dhinaca ka jirto marka caanahaas markii laga reebo maalintaas hub iyo waxyaaba lamid a meeshan haa waa badnaayeen hubku hadda halkan kama sheegi kara waa fara badnaayeen marka hal habeenana laga helaa macnaa waqti walbo dagaal lala galo way ugu cararaan meydadkooda qoryahooda wax walba waa la haayaa marka caanihii maalintaas aa ka furatay macabti waa cabahaa saaxiib qawaarijtu markii xoolo ma lahan sidaan ognahay waa iska maleeshiyaa duur ku jira intay ka keeneen caanahan saaxiib macaan kooxda ma lahan caano iyo wax walbo waxuu ahaa la cuno waxay ka dhacaan amba ka baadaan dadka ka baadaan laakiinse halkaas aniga la yaab kale waxay ugu noqotay inay maanta xoolo ay dadka ka baadi jireen in aan quwaddiida kusii baado taasaa farxadii noqotay macnihii xoolihii soomaaliyeed xoog looga soo qaatay laakiinse maanta aniga ayaga waxuu ahay wax soo baada kasii baado macnihii cabdirasaaq shacabka soomaaliyeed aad ayay u daneeyaan ciidanka soomaaliyeed guusha ay gaarayaan ee xoogga dalka sidee maxaa safariina u diri lahayd sidee niyadda ugu qabooji lahayd shacabka soomaaliyeed ee maanta maaragtaa guushiina isha ku haaya danaynaya inaad ka guulaysataan si ugu dhaqsiya badan khawaarijta shacabka soomaaliyeed waa mahadsan yihiin dhammaantood meel kasii joogaan anaguna waxaan u taaganahay hal habeen baacsiga khawaarijta kamana jiifo doono waxaa leeyahay nin lagu seexdo ha seexan kamana seexan doono insha allah niyadooda waa wanaaji doonaa shacabka soomaaliyeed fariintaan u dilaya shacabka soomaaliyeed iyo dadka macnaha ayaga dhan ma wada ahan laakiinse dadka dad waxaa ku jiro oo si kale wax u fahma laakiinse dadka sida kale u fahma waxaan leeyahay oo macnaha ay kow ka yihiin dadka dhahayo dadkan ama dalkan daacad loo wada maahan maxaa adig ku waalayo maxaa adiga kariga ku cararsiyahay maxaa haddaad dhimato hooyadaa ka dhimatay waa fariimo adiga kugu soo laabta ha fariimo igu soo laabto haddaad dhimato hooyadaa ka dhimatay haddaad dhaawacantay dadkaada ka dhaawacantay ka joog dadka dhahayo kale waxaan leeyahay saaxib yaal haddii adiga maanta adigu aadan daacad noqon ayaga haystaa adigu maanta adigu daacad noqon dadka kalena daacad noqon maayaan haddii adiga maanta aad u istaagi weysa dhibaato walboo dhacdane bihli dalka saana kusii jiraa macnihii waxaan ka wadaa inaansan adugu isdhihin dadkan daacad maahan ee aadna iska dhaaf maxaa kaa galaan dalka sida ugu jiifan haddii adiga aad u istaagtid daacadnimo adig kaa bilaabtaa ninka kalena waa istaaga waa inaa hawsha adig kaa bilaabta hadhihin marka dadkan daacad loo maahan maxaa kaa gala u dhimana u dhaawacan waxaas niidaada ka saar hadhihin adigu ka bilow iska bilow dalku mustaqbal uu yeelo doonyaa waanu lahay uuna hadda gaari doonyaa meesha uu joogo meel ka fiican cabdirasaaqow waxaa ma nooga sheekay kartaa qisadii ku saabsaneed inaan ciidanka xoogga qorato haa saaxib aniga saaxib yaraanteydii waxaan ku hami jiray inaan ciidan noqdo aniga waxaan ka yimiday waxaan ku dhashay shabeellada dhexe gaar ahaan degmo la yidhaahdo biicaddi saaxib 2010 ka yimiday 2010 ka bacdi waagii dugsiga quraanka halkan ka soo galay ilaa iyo iskuulkii waxaan dhan ka soo dhameeyay isla 2021 waxaan ku biiray bishii 9 ciidanka aan ku soo biiray kumaandaas ka gool waxaan ku hami jiray markay xilli walbo inaan xaw ahay kamid noqdo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwooda loogu jecel yahay alxamdulillah maantana waa kamid ahay kamid tahay guutay 18aad oo ciidanka gorgor loogu jecel yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ba kamid tahay dhalinyaro waxaa jirta asaaga ah oo maanta shaqo la'aan ah oo ku hamiya jaamacada soo dhameeyay iskuul soo dhameeyay shaqo inay helaan ku hamiya haddana aan sameynin wax dhaqdhaqaaqa maxaa kula talinaysa
waxaan kula talinaynaa guush waxaa lagu gaaraa tilaab aad hor u qaadda ha adkaatay hase jilcsanaatee laakiin inay dadaalaan kula talinaa ay raadiyaan meesha shaqadu ay taal fadhi guriga hooyadood amba meesha ay fadhiyaan shaqadu ma taalo waxay taalaa goobaha wuxuu ahay horumarka lagu gaaro oo laga shaqeeyo ha noqoto inay u soo istaagaan qarankooda ay difaacaan sida anoo kale ha noqoto inay wuxuu ahay shaqa shibil oo shacab ay raadiyaan dhan walba loogu bixi karaa wadankan waa qani meel walba aniga aan tagay ilaa iyo tababar meel walba u tagay aan soo arkay wadamada shisheeye wax ka fiican dhulkan hooyo ma jiraan dabcan waxaaba ka dareemaysaa meesha hadda aan joogno nimcada taalla iyo roobka ka socda iyo cabdirasaaq markii dagaalkan khawaarijta uu dhammaado oo khawaarij laga guuleysto sida la rajeynayo sanado dhow ama bilo dhow maxaa ku qorshaysan ma inaad ciidanka xooga kasii mid ahaato mise waxaa ku hamisaa shaqooyin kale saaxib waxaan ku haminaya waa badan yihiin shaqooyinkan ku haminayo ku waxaa ka inaan ka mid noqdo haddaba waxaan ahay madaxa magan ku leeyahay askari walba waxay ka bilaabataa amba askari walba waa hanti qaran hanti uu qaranku leeyahay waxaan ku hamiyaa inaan noqdo wuxuu ahay madaxweynaha mustaqbalka maasha allah markii laga soo tago inaad madaxweyne mustaqbal ku haminayso dabcan waa siyaasi darajadii askari hadda ayaad joogtaa waxyaabo kale waa iska badan yihiin laakiinse xirfadda caafimaadka kale ku shaqeysaa aad iyo aad dhulka ka imaatay waa dhul beeraley ah aad iyo aad hay waa jeclaan lahay adiga shaqooyin walba oo iga hor yimaado inaan qabsado waa jeclaan lahay laakiin waxa ka horeysa inaan xawaa wadanka xoreeya khawaarij iska xoreyn insha Allah cabdirasaaq waxaan ku rajeynayaa in furintan iyo furimo kale oo maaragta ka muhiimsan aan isaga daba imaano aduu noloshu nagu gaarto daawadayaal wuxuu ahaa cabdirasaaq sheekh maxamed askari ka tirsan ciidanka commandoska ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor gaar ahaan guutada 18aad maanta aniga iyo saaxiibkay Carab Cabdiweli oo ka tirsan telefishin qaranka Soomaaliya igala tirsan waxaan uga daba nimid jiida deegaanka Shabeelow ee koonfurta gobolka Mudug halkan ayaa cabdirasaaq nasiib u yeeshay wax badan ayaan TikTok ka arkay dabcan sidaad ogtihiin TikTok ayuu ninkan caan ka yahay oo isticmaalaa oo galeerka ku soo galaa wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ciidanka xoogga dalka ee aadka looga jecel yahay waxyaabaha ay soo bandhigaan dadkuna aad u xiiseeyaan dabcan dadka ku xiran ayaan ka mid ahaa jiray cabdirasaaq aad ayaan ku salaamay aad u mahadsantahay